deegaanka godin laba ee gobolka galgaduud ka tirsan ayaa maanta waxaa soo gaaray madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo muddooyinkan dambe ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxaa deegaanka godin laba uga hortagay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed, wasiiro iyo xubno ka tirsan guddiga dhismaha Galmudug. Wafdiga madaxweyne Xaaf ayaa waxaa loo soo galbiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, iyadoo dadweynaha aad u fara badan ayaa ku soo dhaweeyeen magaalada Dhuusamareeb. Sababta uu madaxweyne Xaaf u soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay tahay sidii loo dhamayn lahaa khilaafka siyaasadeed ee muddooyinkan ka dhashay doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug lagu doortay ee Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. ugu horeynaya waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweyne Xaaf uu soo gaaro magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabihii Galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh Galmudug, isu keenay u tanasulay odatinimo aan horay Galmudug u soo marin ka geystay. maantay in halka la wada joogo sababteeda lahaa, sidoo kale wixii ugu dambeeyay ama odatinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyay maantay u muujiyay Galmudug, oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer Galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabii yararkaayoo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinaya Galmudug dhexdeeda. waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf. khilaaf iyo tabasho Galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto. waa ilaahay mahadiis, aragtideennii bay ahayd, qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu wax ka tabanayo iyo siduu wax u tabanayo inaan ugu tagno. ninkii ugu muhiimsanaa oo Galmudug sidaan hore u soo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu Galmudug u tanasulay, odatinimadiisii shalay lagu yaqaanana uu ka dhabeeyey. waxaan leenahay mudane Axmed Ducaale soo dhawow madaxweyne, dadkaagii dalkaaga ku soo dhawow. waxaa sidoo kale isna ka hadlaya goobta madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, waxaana uu sheegay waxaan rabaa inaan reer Galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan, alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl. qof kasta inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. annagu waxaan soo dhutinnay iyo wax badanna maanaan maqnayn, xoogaa yar bay iyadoo kululaysee. haddana waxaan rajaynayaa odaygii waa tanasulay waa la tuurayaa la odhan. aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada. dadka ma tiri dhaqaan anugu, wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogtoo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin. sida quruxda badan noo soo dhoweyseen, 60 kilomitir baad naga soo dhoweyseen. arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato. dadka kulligood Galmudug inay raysataan loo baahan yahay. Galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna. anugu geed fadhi kaliya maahaye waxaan rabaa inaan iska fadhiyo Galmudug, maba ka tagaayaba. xamar damba uma socdo. qof walba ogow inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan dhisaan rabo, halkaasaan iska aadahay. ayadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo. rag badan oo meesha joogow war igu soo taakuleeya, baasha lafada ka daaya. warku waa inoo dambeeyaa.
habeen dambe iyo marba xaflad dhigin doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano aad iyo aad baad u mahadsantihiin galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsantihiin rag badan oo meesha jooga oo aan dareenkaga waa jiraa laga raalli ahaada safarka madaxweyne xaaf ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii hoygiisa gaalkacyo ay ugu tageen xubno isugu jira guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa galmudug iyo xildhibaano isugu jira labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaa waxa magaalada Dhuusamareeb ugu dambeysay bishii Sebtembar sanadkii hore 2019